سلامة إسلامك يا رجالهم نسكو سلامه سلامك نلوشي دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما مرت شرفك نوتميت آد بان أقوم حسن لهاي وقتي قالي لها ونسيين مركا مدشان iyo hawshii loo yimid iyo haddaan ku runaya intaan galin waxaan ku furaynaa insha Allah ta'ala aayadaha quraanka waxaan ugu bilaabayaa wadaadkeena Sheekh Ali Xasan Maxamuud fulayt fadlan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا ليال وحان دوين ماشان كشيء مايو إلهي سبحانه وتعالى أيا ضدان هذا المسلمين أمرنا من كسب أن أسيس حسوسنا إلهينا قرآن كعكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نبينا صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحوكير ضد هذه سوي مادان مجلس أو مجلس سوي ماذا أيسان الله سبحانه وتعالى حسين نبي قدنا أيسان كسلين صلى الله عليه وسلم حكيت تاجيان أيوة كشل لا وقت جايجها أكون حضورنا إن شاء الله ما دام مجلس كنا وياهي مجلس إن شاء الله نقف فرنه بإذن الله تعالى آيات الله سبحانه وتعالى يحوى وعديه. وحصل نقولي هذا الكي إن شاء الله تعالى مدرسان ماشى شرفت له وأنا سؤول لي وتجدد يا مسلميني وحويه مركب أول رئيسا باشا السدد دارود صلى سعتان وجاز كودي وجاز عمر وجاز حرسي naxariistii janna Allah siiyo sanadkii hore ayuu geeriyooday 2012 bartankeedii shuun baan filahayaa waqtigaas iyadaana waxay ahayd waqti abaar iyo colaad iyo wax iska jireen oo wad garanaysaa wixii Soomaaliya ka jiray wixii shibaan kalima jirin ugaaskana wad garanaysaa beesha meesha uga jiro Soomaali baan nahay dad islaam aan nahay ummadan ma taqaanaa yaani dawladnimadan iyo maamuladan siyaasadda iyo aan walba handabayno waxa ka qaalisan ama ka horeeyo waligeed aan ahaan jirnay ugaasnimada ahayd waxaanu noqonay shinni ma taqaanaa weylay yaani boqorkeedii ilaahay mahadii bishii February oo sanadkan ayaa walaalkeen ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi uga caleema saaray magaalada Badaxaawo sawirkiisana waa haysan meesha ku arkiiseen marka maadaama wadankii gudihiisa ninka lagu caleema saaray anuu ka beel ahaan inaanu mataqaanaa aan muujino taageero iyo cadeyn iyo Soomaalida aan kala qayb galno oo maartay walaalahay mataqaanaa aan muujino farxadaas inaan la wadaagtaan oo hadaa la ku yahay waa aqal soo jireen ah oo taqliiliya oo Soomaalida ka dhaxeeyay ama islaamkaba marka inaanu una ducayno aana kula faraxno kula damaashaano meeshii madashii haddaan joogno de qurbaha aan ka joogno sidaasaan idinku yeernay waana ku mahadsantihiin Allahna idinka abaalmariyo ajar aan ka siiyo socodka loogu timaadeen walaalkeen oo meesha odageedii ayaa hawsha hadhow loo daadihin doona inkastoo waqti uu ciriir yahay wax yar baan ma taqaanaa waxaan rabaa taariikh nololeedkii ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi inaan mataqaanaa idin sheego ugaasku wuxuu ku dhashay magaalada Garbaharey gobolka Gado sanadkii 57 wuxuu dugsiga Quraanka Kariimka ku dhameystay isla magaalada Garbaharey kadib wuxuu dib ugu wareegay degmada Qoryooley halkaas oo ku dhameystay dugsiga sare 75 dugsiga sare ka bacdi markuu dhameystay wuxuu galay kuleedii sharci muxuu ahaay gahayl oo mataqaanaa jaamacadii uu ka qalin jabiyay waxaan filayaa qaybta siyaasadda kuleedii siyaasadda 1982 markii barakuuc dhacay wuxuu u qaxay wadanka dadkii Nairobi halkaas hawl culus oo ugaasnimo oo de mar walba ayuu ka hayay oo dhexdhexaadinta iyo shirarka iyo nabadeynta ayuu waligii u taagnaan jiray كبعدي وحنا قد دتك كندا تجي
halkaas oo uu mataqaanaa haddii alla kuu roon yahay jaamacad ka bilaabay mastered uu ka dhamaystay ugaaska bishii February sanadkan ayaa lagu calaamad saaray Buulaxaawo ugaasku wuxuu caruur leeyahay 9 iyo hal xaas Allah u barakeeyo markaanu tira koob ka sameynay soo jireenka ugaaska beesha sade wuxuu noqday ugaaskii 22aad it means waxa weeye 22 baa ka horeysay 22 buu ku noqday waxaad ogsoon kartaan dhaqanka iyo diinta iyo sharafta iyo inaan dadkan umadu dad ismaamuli jiray inay ahaan jireen Norway aan hadda la joogno boqolkii labaad way boqolka hadda u joogo markay iyagu heshiin waayeen Denmark baa boqol loo keenay waa la socotaa inaan anagu 22 marka qabaa'il kala farbadan xataa hadii la tiriyo 50 iyo 60 gaariya ayaa jira taasuna marka waxa weeye waa macluumkeeda kala weey hadallo badan baan rabaa inaan sheego laakiin waqtigu waa yar yahay dad badan baa muddo badan fadhiyay odaga beesha Cabdi Faarax ayaa meesha uga baxaya hadee muxuu ahaay ugaaskaas inaan u ducayno oo dal u ducaysaan in Ilaahay uu ka dhigo midii beesha barwaaqo iyo caano u horseeda dariska iyo walaalaha isku wada xira nabadeynta ka shaqeeya inaan ugu ducaysaan aamin oo tirada baan ka rabnaa farxadana wadaagtaan kuna soo dhawaataan salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu dhageysanay aayadii quraanka ahay iyo biographihi Sakhri Maxamed Xaaji oo ku saabsanaa ugaaska maanta loo dabaaldegay waxa weeye waxa ka horeeyay ugaas adeerkiisa oo geeriyooday ila beeshu beel qadiima weeye maxaa keenay ninka bisay maanta dadka qaariniis weydiiyaan baa dhici karta adeerkiisa geeriyooday waa dhaxal weeye saas oo hadda yani ugaasnimadan hadda laga hadlayaa maanta ay ku saabsantahay magaciisuna waa midka aan soo sheegay ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xisi ugaas Maxamed waa ugaaska beesha reesada hadda yeelatay oo xaq ah oo sax ah su'aasha taagan waxa weeye horta ugaas muxuu yahay su'aal ruusi ugaasku muxuu yahay ugaasku waxa weeye waa qof ay ku heshiiyeen qoomiyad oo qoomiyadaas ay doonayso inuu ku hogaansho nabdoonaan iyo barwaaqo iyo baraare waxaana loola jeedaa beelaha kale ugaasadooda inuu la jaan qaado la tashado nabadda kala shaqeeyo waxa xun dadka ka reebo waxa fiican dadka u sheego ugaaska macnihiisu intaas weeye waxaan u soo horumarinayaa Suldaan Cabdiraxmaan Sanyare oo ku hadli doona magaca beesha reer Daaro بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماتي وسلامتين وتشرفت كسر غير الشيخ حمدان أين وجود عيننا أواسك بيش الدارود أواس محمد أواس حاشي أواس حسي وسائر تاريخ كو أرنو فعوين أحرودي والله يلا باتن درستي وحل إلى أفق قلدوين هذا أما سوتشريك أنو أركي وآد قيمة أبدا waxaynu u ducaynaynaa sida uu bayroodkuna ka cusay iyo inuu garan karo waqti waa ciriiri taariikhdii mara weeye waana markii ugu horreysay loo ka dhacdo caleemasaar nooca kolba intaan taasa qiimo weyn bay noo leedahay marti sharafta ka soo qayb gashay oo Soomaaliyeed waxaynu ugu ducaynaa ugaaska in Ilaahay ka dhigo xilkiisa guta haddaba waxaynu aragnaa inuu hawl saafal hayo asoo bachelor inuu Canada uu saafal kada ka shaqeeyay markii uu waa ur saafal mushaar ku qaadanay markuu dalka inoo yimaadana insha Allah waxaanu rajaynaynaa inuu ka qayb qaato nabadeynta bulshooyinka Soomaaliyeed oo door weyn uu ka qaadan karo horan uga qaadan jiray kuwa lamid aha ama waalidkiisii ama aabihiis ama adeerkiisa hadda ugu dambeeyay waxaana kaloo aad beesha ugu hambaleynaya Soomaaliyeed dhan aan caaw maqashiinaya runta hadeero waa beesha kaliya leh hal ugaas qiimo weyn oo gaaray leh waa beel balaaran waxaynu arkaynaa isbarbariyaac ugaasho badan iyo garaadyo badan iyo islaamo badan iyo iimaayo badan iyo waxaynu ka dhutinaynaa waa halka runta hadaa la sheegay wax xubaa la sheegay oo loo jeedo inaa qola gaar aru tilmaamay laakiin waxa weeye waa meelaha aynu ka dhimanay ugaasku waxa weeye haykalka ugu sareeya ama islaam ama boqor iyo malaaq garaad beeldaaje intaas oo la baxra qud
كلها وحصل واسمه جرا وإنه كل قانون هذا لو حويه ده هذا هذا عاول يروحوا محمد هذا الهايين كقوي أي كون بمن حقود الرميد والبلوادي قبل كريري عنا أسمعوني كرا ساس ويا هذا شغل أوجاز كي بيش الأوجاز هذا البلد وحوي وقت مرة بينا كوعيارو تاريخ بدل بينه بيشانو وبينه البلد ومدة الصومالية وحنا رجينا واسيدا كرو جرا يبلدياش يسمد كرو الصومالية إذا كوار قاتان بيش السدء وإسنادو كريشان هل أرور يميل لوسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد إخوتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كنتي سلام كدب أن نحوها أن أهر مرينا يا سوى وقت نغير يا هي على مسارك وقاس محمد وقاس حرسي وقاس حاشي oo ilaa iyo 12 awow 22 awow tirsanaya muxuu ahaa ugaasnimadaas waxba diinna hadda waa la iga horeeyay waa la sheegay dhaqan ahaan iyo ugaas waxa uu yahayna waa la sheegay marka waxa weeye ana haday looma hadlo laakiin tiise waxaan aniga oo beel ahaan ka soo jeeda beesha dir laakiin oday Soomaaliyeed أما سلطان سوماليات باش الدير أنا وقفتها ذكوه هذايا وقوي يكون فربا سحوج وحن أتاجرنا سودوينتا وجاسك محمد وجاس محمد وجاس حاشي وجاس حرسي أيام سيد توصل وحن ربعنا نقوله باش أبقل أنهم من دلود وحن يا سلطان عبد الله عثمان بسم الله إلهي بقى مهدى له انت كسو هارتين دادك قوغش عندقي وتاريخ وين له يا مهدى لواننا له مركان كسو قوغو وقاسكي لنتي وانس عرقني او شركي نيروبي او دولدي عبد الله لغو دورين هيان سكو عرقني كان مرك دوبان انو كايمي هذا نيروبي على مساركيسي واكو عسومنا لكن ما أدري أصنعوان أركي بيشان مركان تاريخ ذي كذا شكله إيو بيش يلي يرادو مدلودا رغم كإسكما شكتان هذا حوجا وذاك يورون ويل مدبا وحال يراد كور أرتمها برج وروال جنجري مركا مدبا صادش مركا سوي يو تور كي بسويه أمم بتور بيشا إيمان كله ومدلو كم كلا داتان حتى هوية وكيل كتب وكم كلا داتنا بيشا نوالله مد تاريخ ذا ولي مدعين وقاس ليسكو قبصده بيشا مدلو إيمان ليسكو قبصده ولي مدعين هوس تاريخ واساس دتك كله سلطان بدن واسي بدن وحياة بدن بيليه أو بح هذا اللي بقوله بوايه ورتوحى ما أنت بوش عن الله رجعيه مركو راح نبلي عليها مدوا دردارنا على دردار من الويلك أبكي وجاسك مدنا وحوايه دعاء ندعين إنه بيش قرطي إنه يهدي نويرته دعاء ندعين لا بدأ سوايه ورتا حفلته لا بدأ سي سبسنت وحنا لأنها وجاسك waxaa jirta saddex wuuna maqliyo oo kulli saxaafada laga siiday munaasibadan saddex baa jira jid haye iyo jid xire iyo jid fure saddexdaas waaba dad jid haye waxa la yiraahdaa aabis wuxuu sameeyay jiray kaliya ninka sameeyay waa jid haye jid xire waxa la yiraahdaa wixii aabis sameeyay jiray nima ba sameeyno wuxuu macrifaha gooya wixii laga sugayayna haleeyo jid xire la yiraahdaa جد فرو وحال يعني كي أبيس كرك سنان وحال لنا كرك سنان ميسري جد هاي اللغان لنا هورتني كاسباس أنت أسمع كان يراهو بيشا وحال لي هجرم واينا ودكتين أنا غلطت كان إيمانك وأنا قاعد أنتي إن شاء الله دين كبت ورحمن دون إنك الصحول على ودك كجيران وماله إني أولي دولة دتجي
markay tagtaan ma arki doontiin insha allahu waa idin ducaynaynaa annaguna waxaan idin leenahay anoo magaca hawiye iyo magaca soomaaliyeed ilaa wadaadkii horaad sheegteenoo dadkaanu waa iska soomaali anugu soomaali in la dhaafo ma rabin dadkii doortayba intaan waa ka badnaa dadka wax doortan intaan way ka badan yihiin mar haddaad shanqariseen anoo beesha afkeedii ku hadlahay ta soomaalina inaan waxba u hambayn raba waxaan leeyahay beesha garatoy midnimadeenni iyo tawfiiqdiinni ha jirto ha badato waxa tafaraaruq ma heeshaan ugaaskan cadaalad allah ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ما تسكر إلهي اسكو كان إنتان وحان السيجارة ما علينا هي تكتب وش عندي دولة رقبة أو معناها دنيا هاي تاجرة على مسار كوباس كرسول باشا سيدي واس محمد واس حاشي واس حسي واس محمد وحلنا هاي ولا ليال وعندنا سنتين إلهي أشهد يا الله إنكسي وحنا رجينا يا ضد بدن الصوماليات وسيدها داي سيار الشيء إن كنت رأينا دونا سيار إنكسي وجاس كبيش الدار أنا وحنا وجاس كبيش سيد وجاس الصوماليات بركة واسك كفتني تاسو وحنا رجينا هي إن عارفين تاريخ يا أي عارفين هذا كان ضد كسوية أرتين وجاس كلا بيا لبعتنات وحجيبه وهي ضد كنا كصوماليات إن سنساس الدوك وورهين إن الصوماليات نقم ونكسر بداية وقت هذا iyo waqti ka shisheeya oo soo taxnaynay Soomaalidu leedahay ugaaska labiya labaatan marka ma qasar u noqonay konton marka ugu dhifto waqti aad u dheer weeye inta Soomaalidu ismaamul bay lahayd iyo ixtiraam ugaasyaduna waxay calaamada ama muraayada laga daawado umada dhaqankeeda kaas oo ay muuqato sida dadaalka aad gasheen iyo abaabulka aad gasheen iyo midnimada beesha wixii ducaaha iyo hadalha inta badan ugaasyada ugu horeeyay yiri aniga shakhsiyan وأنا قرأنا هي أنا قلت السياسي وأنا هاي وكاب قبيل ما هي لكن قاب قبيل ويا قلت قاب قبيل ويا أنا هو مركز السياسة قاب قاعد ويا الشيء ذات عشرين إن قبيل ويا مكانها هي وساس نوع وتاجرها هي أيام وحرجين هي إن كتب شو باشا أنا وأنا كسر شيء وخفر وكل بيل بكسر شيء ذا واسك هيداي وحول أنا صومالي ما شاء الله أنا ورت السياسة وصومالي أنا هذا شاء الله صومالي قبيل بس كويس ما توحى ليه marka waxaan leeyahay ugaaska awoogi waxaan ku soo dhaweynaynaa gacno furan waa taageeraynaa markaan uu leeyahay waxa weeye dadku sideeda loo qof walba ka soo jeeda qaraabo inahay kulligeen waxaan laga qaldan baa dalka iyo dadka naga burburiyay marka anigu gaar ahaan waxaan dadka ka soo jeeda beesha si qayb kamid ah waxaan leenahay ii sheeg anigoo matalahay beeshii aniga adigu igu yarteen magaceeda ama hawiye ama habaldiir ama hiraabkaad jeceshiinba waxaan kala qayb qaadanayna xafladan caawi anagoo ku taageerayna si buuxda ugaaska rajaynayna inuu matalo buuxiyo kaalintiisii anigu ma qabo inuu aabiis ka liidanayo waxa jira dhilina adoog corona waxa rajaynayaa intii aabiis u gaaray in ka badan inuu gaari doono aqoonta uu leeyahay markii la qiyaaso iyo waayaarnimada ugaaskii ka horreeyay liita macnaheedu ma aha laakiin dhil heerkaas oo ilaa akademik heerka jooga in oday dhaqan loo doorto ama beel dhaqan loo doorto wax ajiib weeye waan la kaga doon doonaa inta insha Allah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين به نستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اجعلنا من الهاديين يا ذا الجلال والإكرام أما بعد يا إخواني وحيدين سلام يا سلامة الإسلام كأني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخواني أنا وحنا هاي كابتن دولية أيانا نين دولية دولة نعمل كدولية دولة دجال كاي دولة يعني إنفنتري كا كابتن وحوها حدفار أو ميران كابتن بانوها نينكاسو ماشي جوجا ما كان يجا حتى قبيل كأدو يقويري هاي أدي أد وأكيد الشيء قبيل نيمان كذا المال لكن سوى يقويري قومت قبيل كأدي يقوير هاي وحن لي هاي أن أوجاس محمد وحن لي هاي إلهي عمر داري عبادة سبحان الله سيو سنوات كان دنبيتون لباتن كان سنة وحن نصوم مرتي قبائل أو فربدن أو دجال بدن كل حجرة أو برمجيدة لهين با برمجيدة دي أيها بالحبض يا با أيها راح ديستاب مركا وحن لي هاي هرتوركي أو لقولنا قادو إلهي هاوجد دجا باش سدي كي محايته إن عمري صار فاجن الله كدجو
ummadda oo reer Sudan ninku u horseeda oo qabaa'ilka oo la diriska ah oo inuu kii la jaan qaadan Ilaahay ha ka dhigo subxaanahu wa ta'ala annaga inaan u duceyno ayaan rabnaa ugaaska waanu u duceynay inta soo awoobishay xafladan oo wanaagsan soo awoobshan Ilaahay khayr ha ka siiyo thaniyan waxaan kale toodoo jirta inkaarta inay qabsatay waxa way in la ixtiraamo ugaaska hadii la duubo in la ixtiraamo maanta beesha sada ugaas bay duubatay waxaan igu maqaalaa aniga inuu ugaaska hadda adiga waxa tir 22 nin baa wuxuu yiri 27 ugaas buu ka tirsadaa ninkan oo ka badan oo isku tixayn marka waxa weey nin aad u nin sahlan ma maadaama nin sahlan oo la beesha sahlan waxaan leeyahay mid hormood oo muuqato muraayada ummadda u noqoto oo ha aragto ha dadka dad baa ma la darisa waliba anaga waa istaabanaaba marka waxa weeye marka inaan u aragno mataqaana sida ay xaalkooda u dhaqmayaan in dhaqankooda lagu dadiro salaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantiin horta waa salaamantiin waxaan aad iyo aad horta ma rabin inaan anigoo magac beereed wata aan galabta halkaan istaago laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa dayax hadii la waayo xidigaha lagu guuraa waaba u jeedaaba ihori mayso laakiin waana ka gamba waayay midda labaad beesha side ugaaska aniga uu weey hooyadeeday dhaleen aniga dhinacaasna waa ka ahay oo kama maqni laakiin dadka dhana isku saafan ugaaska waxaan leeyahay ugaas maxamed ugaas xirsi ugaas maxamed ugaas xaashi waxaan leeyahay ku soo dhawow ummadda Norway ku nool oo Soomaalida ah karaamo iyo sharaf ayagoo aan ka qayb gelin doorashadii halka lagu doortay maanta ayaa anaguna dooranay oo muteestay inaan qalinka ku dugno Allah waa aqbalo horaa loo yiri warkoo dhan ninka u dhaartay calanka iyo ciidda iyo dadka lagu dhaariyay 60kii ma ahan beel qabiil inuu halkaan uga hadlo laakiin waa iga maarmi weyday iga raali ahada weligeyna waa maalintii ugu horreysay beel anoo ku hadlay magaceed aan soo istaago meel shir lagu qabanayo عليكم ورحمة الله وبركاته. نبغى هذا كور وحلاق الشيء جيدا اللي تري يقبل اللي تري. مركا كل يوم علو بلوجي معناها وإسلام فاهمين. أنا وحن فيلا إن كل الله يريد دورنا نهانا لكن لا بقى من سوق عيي. إلى نبدأ إلى هذا كمان شكاه الله. إلى نوجي فسارها يوم جوشها نك جوحي عنها هاي. مركا لا أصير سوق عيي. أنت وقفت أنت كذب. ragga hadda halka ka hadlay dhamaantood si wanaagsan bay wada hadleen waana si wanaagsan awalhu Alle subhanahu wa ta'ala muxuu ahay inaga kulansiiyay oo noo waafajiyay xafladan noo suurto galiyay ayaan u mahad celinaynaa marka xigta ragga soo qaban qaabay hawshan ayaa iyaguna sidoo kale runtii mahad celin iyo muxuu ahay amaan inta baan iyo ducaan isku tareynaa waxa sidoo kale runtii aanu aad iyo aad ugu faraxsanahay anu shakhsiyan taageerada muxuu ahay cali musaarka ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi ugaas maxamed oo runtii raggii meesha ka hadlay dhamaantood anigu aan waa aqoon badnahay aqoonteennana ay ahayd waqti muddo dheer oo aan ahayn mid macnaha 20kii sano hadda la soo dhaafanayna ka horreysay waxaan ku aqaanaa nin u qalma waxa ma hawsha maanta ugaasnimada looga yeelay waa nin ka soo jeeda asliyan sida meesha ka cadba muxuu ahay ugaasnimada kuna u dhex barbaaray dhaqanka Soomaaliyeed iyo ugaasnimadii saxda ahayd ee aan ahayn midda modelka cusub ah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه دوحنو فرحسناي صاحبي عبد فارح عديسي انه يوسو دوي ميكروفون كل صاحبتنا معي انت كدب مناسبة aynu soo nimid waa munaasabad aynu ku taageerayno
ugaaska beesha sade ee caleema saaray kolley hadal badani kama furno hadalka anigu aan jeedinayo inaynu u ducayno ugaaska ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi inaynu ilaahay inuu hawshaa loo magacaabay inaynu ugu ducayno inaguna meeshan aan isku nimid iyo xafladda magaalada Oslo ka dhacaysa intaas inaan kaliya ducada inaynu wadaagno oo faatixada u marno in ilaahay hawsha u fududeeyo ayaan ku tarsanayaa aad iyo aad assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa sayidina maxamed walaalayaal horta ilaahay baa mahad leh waxaa kaloon u mahad celinayaa beesha side oo nagu martiqaaday maanta xafladda tan inkastoo ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi uu naga maqan yahay hadda laakiin horaa loo caleema saaray annaguna caleemasaarkii ayaa maaragtay ku ayidaynaa halkan oo maaragtay maadaama Norway Soomaalida joogtaa ay aad u badan tahay waxaa lagu qasbanaaday oo maaragtay in la ogeysiiyo ugaaska cusub ee ku soo kordhay maaragtay Soomaaliya haddii mar beelo ay ugaas magacaabato beelaha kale Soomaaliyeedna sidaas oo kale ugaas buu u yahay marka ugaaska waxaan leenahay amaan leeyahay ilaahay ha ku fududeeyo xilka lagu saaray iyo mas'uuliyadda meesha sidana waxaan leeyahay ugaaska ha lala shaqeeyo oo waxa weeye ugaasku haddii lala shaqeeyo shaqo wanaagsan oo qaban karaa haddii laakiin la iska magacaabo la yiraahdo waa lagu magacaabay ugaasku beeshan ugaas u tahay oo maaragtay wixii dhaqdhaqaaqiisa oo dhan la xayiro waxa weeye wax qabashadiisu aad bay u yaraanaysaa nin wuxuu noqonayaa xaafiiskii iskaga xiran marka waxaan leeyahay Soomaaliya intaas haddaan uga baxo ugaaska iyo caleemasaarkiisa yaani ku daalintii lagu daadshay iyo ayadaan ayidayno waxaan leeyahay waan uga faa'iideysanayaa oo kale hal daqiiqad insha Allah Soomaaliya waxa weeye wadankeeni waxa weeye dagaal baa ka dhacay wada ogtahay dagaalku muddo dheer ayuu socdaa 21 sano hadda fooda la galay insha Allah laakiin hadda wuxuu eeg yahay inuu soo yaraanayo gabagaban yahay bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wixii la dhihi rabay horta rag iga horeeyay baa dhahay waan ku mahadsan yihiin beesha sida sharafta leh ay inoogu martiqaadeen xafladda ay u qabanayaan ugaaskoodii ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi ugaas maxamed waxaan leenahay ugaaska kii dalka iyo diintiisa daafaca Allah ka dhigo kii dadka u horseeda wanaag iyo matqana ishaga iyo nabadna Allah ka dhigo insha Allah ta'ala hadalkan wax badan ku fogaamayo ragga xoogaa matqana ishaga wada isku xirka waxaan leeyahay wax yar waan u cudur daaraya waliba maadaama aysan ogeyn sida ay beeraha iyo matqana ishaga ay kala yihiin waxa way ugaas muxuu yahay oo suldaan muxuu yahay oo garaad muxuu yahay oo imaam muxuu yahay yani waa wax dhaqan Soomaali dhaqanka hadii laga boodana waxba hagaagi maayaan waxa weeye dhaqanka waxa kamid ah sida loo kala weyn yahay in la isku ixtiraamo ma sha Allah ta'ala meesha leekan inaan suluusanayna maaha si fiican ay u dhacday oo ninka ugu da'ayro hadda ka inaan ahaan u maleynaa in kastay bidaar gasho oo inaan weynahay laga yaabo waxa weeye beesha hawiye سفي عن أي ماشي ووضع هاللين لكن وحي كليهن دقن إن يكلويهن كلنا عرسيهن بيش متقنا يشغل الله كرنا أو عرسن بيش جمون دبا أو كحكتا بيش هراب أو قصي حكتا إلا أساس آخر بيسكت بتحيين لكن بيش استدام دام يستمرين هو المنترين خلاص يستمرين وارجع وانكم ماسيهن وقال كان هذا دعينا أو تناط oo tuubo badan tag tolkana tiir dhaxadkiis Allah ka dhigo ugaaska watii liigu ducay jiraan asigana uu duceynaya tanaad oo tuubo badan tag tolkana tiir dhaxadkiis Allah ka dhigo
يعني erayadaas waa eray u tiriig ah oo dadka badankood inay safahansaneen laga yaabo ilaahayna waxaan ugu baryayaa inuusan ugaaska uusan noqonin kii madarka la iskugu yimaado ay muluqa ka xambaarta waa u tiri kale qofta rabta gadaal ugu sharxi doonaa waa u tiri waxaana isticmaala ugaasada iyo salaadiinta iyo garaadada iyo dadka noocaas marka waan ku mahadsantihiin ugaaskana waxaan leenahay kii mataqaana dalkii iyo diinta daafaco tulkiisana wuxuu qabta ummadda Soomaaliyeed wuxuu qabta Allah ka dhigo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaa mahad iskale ilaahayga subxaana qaadirka ee isugu kaana keenay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan waxaa intaa ka bacdi waxaan u mahad celinayaa dadkii xafladan qiimaha iyo qaayaha leh soo abaabulay waqtiga badan ku bixiyey waxaan malaynaa intaan isu keenideedu wax sahlan maahan khudbadan aan ku matalayaa dhammaan beelweynta habalgidin ayaan ku matalayaa marka ugaaska sade xafladiisa aan isugu nimid waan maaragtay soo dhaweyneynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin ilaahay baa mahad iskale marka ugu horeysa marka xigtana waxaan u mahad celinayaa akhyaartii soo qaban qaabisay xafladda ee suuro gelisay intanoon isu timaado ee isku howlay waan u mahad celinayaa jazaakum allahu khayr marka labaad waxaan u hambalyeynayaa oo u taageerayaa ugaaska cusub ee ku soo beeray saaxadda ugaasyada Soomaaliyeed ama dhaqanka Soomaaliyeed kale waxaan maleynayaa waa golo dhaqan weeya meeshaan isugu nimid waxaynu isugu nimid inaynu ducayno una hambalyeyno ugaaska cusub ee magaciisa la yiraahdo ugaas Maxamed ugaas Xirsi ugaas Xaashi ugaas Xirsi ugaas Maxamed ugaaska waxaa la inoo sheegay inuu tirsaday 7 Soomaali 7 ها هذا لا لا تبع هذا ماشي كورن لا لا تنفع وحسهلا ما وتاريخ هذه هذا مركا حضارتها laga sheekeynay waxa la eega ummad ama qoomiyad meel degan xadaaradeeda soo jireenkeedii baa dib loo raacaa waxaan halkan ka xusayaa kulay dadka beelbeeliyo magaca waxa lagu soo kicinay beeshan anigu aan hamka magaceeda lagu soo kiciyay inkastoo maanta aan halka taageeray halkan maanta kaliya kama taageerina waxaan idin sheegayaa in deegaankii reer Khaatuma laga taageeray oo looga dabaaltegay anoo ku hadlayaa qowmiyadda uma hadlayo beel iyo qabiil qowmiyad digli midafle la yidhaahdo ugaaska xaalad weli dardaaranka waxaan usii darnaa xaaladii maaha waqtigii maaha isbedel weyn baa jira marka sida hadda loo sheegay in aad nin casriga iyo waqtiga la socda aad tahay noqo kii beelaha isku keeni lahaa majaaliyadaha ama isku keeni lahaa qowmiyadaha isbedel weyn ka dhalin lahaa Soomaaliya inuu noqdo insha Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du علماء الدين aqoon yahanada saraakiisha saxaafadda sida calanka dhalinyarada dhammaan ummadda Soomaaliyeed meeshaan isugu timiday assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh salaanka bacdi waxaan sharafi ah in xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ee sida heerka sare loo soo agaasimay ee loogu caleema saarayo wala caleema saarayo lagu taageerayo looguna duceynayo ugaas Maxamed ugaas Xaashi ugaas Xirsi ugaas Maxamed inaan ka soo qayb galo lagu casuumo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ugaas Maxamed waxaan dhihi karaa waqti aad iyo aad u adag
oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo macal calanku ay xiriir ku jiraan loona baahnay ugaas aqoon leh karti leh dadnimo leh asal ahaanna u leh sinji ugaasnimada in la helo ayuu ku soo hagaagay waxa kaliya leenu kaga baahan yahay annaga haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed intaba waxa way laba shay oo kaliya in aan taageerno oo aan heliyo hooba la garab istaagno haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed sidaas oo kale inay heliyo hooba la garab istaagto ayna u fududeyso shaqadiisa haddii alla yiraaho بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال هذه أدبا مهتنتين أوري waxaan jeclahay runtii inaan aad ugu mahadnaqo madashan cidii soo abaabushay ay igu soo maamustay ayaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa markii runtii aan imanayay anigu wada waxoogaa control check baan sameeyo maadaama waxyaalo badan bateen madashan ma saxba dadaan sax ahaynba marka anigu maadaama siyaasa ahay runtii waxaan ku yeeshay xiriidho badan meelaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed meel kasta jooga wax laga yiri haddaad xisi ka weydaa tagi runtii xad gaar ah bay tahay inaan idinku imaado maanta madashan ay igu soo casuunteen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigoo ah xildhibaan aad doorateen 6 bilood ka hor matalayana beesha dadweynaha Soomaaliyeed ama 600,000 ee degan dalka Norway gaar ahaan Soomaalida anigoo matalaya beesha Soomaaliyeed ee qurba joogta ee Norway anigoo matalaya farxad ay runtii tahay maanta waxaynu nahay wajiye cusub oo Soomaaliyeed halkan isugu yimi dhaqanka Soomaalidana runtii wuxuu lahaan jiray xeerkaab iyo xeer jajab xeerkaabka salaadiinta cuqaasha wabarada duqeyda malaaqa wali wabaradii maan maqale malaacid baa u maqan marka yani waxaas oo dhan waxay ahaayeen madax dhaqameedyo Soomaaliyeed oo leh asal iyo aasaas oo lagu soo hirto wax la weydiiyo maamad la saaro waxa la siiyana waxa la oran jiray sado iyadoo sade halkan ay ku taalo oo nin yahay haddana sadadu waxay nahayd baan u malaynayaa waxa suldaanka la siiyo ee sharafta lagu siiyo bay ahayd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه هذا قيمة بدن أيام ورع سنة هاي رقي يوري هذا علمتي هذا يعني للحق ما ملك iyo madarnaysa nidaam guud iyo dadka ka soo qayb galayaasha hadba ragga oo reeba faraxsanay aad u maadsantiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay duubista ogaaska iyo mandiqada laga duubay waxaana hubaa inuu ka qaadan doono kaalin weyn oo libaax inuu ka qaadan doono midnimada ummadaas in sidii horeyba looga bartay ogaasyada gobolkaas ay si toos ah isugu kaashadaan marka waxa waaye ugaasada lagu dagaalamo ama lagu tartamo ama maqarnaa la isku qabsado mandaqadaas kama imaadaan ee waxa ka imaadaan mandaqada kale annagu waxa leenahay wabarkayna wuxuu soo jiray hadda cadadkii ma qorno laakiin waxaa lagu xisaabaa 1200 sano ayay ka soo bilaabaan hadda taariikhda qoran oo maaragtay hal famil baa iska dhaxashan laguma tartamo lagumana buuqo meesha waxaan usoo istaagay anigu haatan waxaan sheego garan maayo wax allah waxaan sheegi lahaa rag hore sheegay marka hadal waaga soo dhamaaday kaliya inaan u hambaliyeeyo ugaaska ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi ugaas maxamed inaan u hambaliyeeyo baan usoo istaagay waan u hambaliyeynayaa hambalye kadib ugaaska waa u ducaynaynaa haddana waxaan leenahay sidii dadkii hore ugu duceeyey waan anaguna mataqaanaa ducadii uga daba diraynaa waxaanu leenahay ugaas khayr qabo oo ugaas wanaagsana oo ummaddu ay u baxsato ilaahay inuu kaa dhigo taasi aanu mataqaanaa kugu ducaynaynaa marka wadaadta ilaahay baa mahad iskale allihii halkan suuqayo keenaa mahad iskale waxaa mahad labaad leh waxgaradka ummadda Soomaaliyeed ee meesha yimid aqoon-yahanada ugaasiyada garaadiyada suldaanada dhalinyarada cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladan xaqiiqadii
xaflad beelaan waxa ka soo qayb galay ummadii Soomaaliyeed gaar ahaan qowmiyadda ku nool Norway gaar ahaan Oslo iyo Akershus hadday aqoon-yahano ahayd haddii caqlintii odayaashii reer Oslo kana tirsan ummadii Soomaaliyeed dhammaan qabiil kasta ha ahaadee aad ka soo qayb gasheen xafladda ugaaska intaas anaga sharaf noo dhammaan shaabta meesha isugu timid salaadiinta ugaasiyada dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan u mahadnaqayaa marka hore dadka iyo akhyaarta iyo ugaasiyada ka soo qayb galay shirkaan waxaan u mahad celinayaa sida sharafta leh ay uga soo qayb galeen waxaan halkan anoo ka hadlaya magaca dhalinyarada beesha sida daarood dalka Norway inaan muxuu ahaa ii sheegay aan taageerayno ugaaska beesha sade lagu calaamad saaray dalkii Soomaaliya waxaana leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha waafajiyo xaqa iyo inuu ummadiisa iyo beelaha Soomaaliyeed u horseedo nabad iyo barwaaqo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ضمان أخيارت الشرف سلاء كسوق يبقى حلفدان آدي آد وأقاسما أو سوء أقاسمين ضد لنيراء أو آدي أيكن أمهات سنين كو سوء أقاسما يقوى سيد شرفت لأو كسوق يبقى لبو لبضبو magacay waa Aadan Farax Yuusuf waxaan marka hore u mahadcelinayaa dhammaan dadkii u istaagay inay xafladdan qabsato oo isku talagalay inay isku keenaan madaxdii dadka Soomaaliyeed ama hoggaan dhaqameedkii dadka Soomaaliyeed si ay nagala qayb qaataan xafladdan hambalyada ah aynu halkaan uga jeedinayna maanta ugaaska beesha Mareexaan ay ku doortay magaalada Madaxa oo bishii 20 bishii Febraayo ee sanadkan beesha reer sade ilaahayna waafajiyo talada wanaagsan iyo maxay horumar iyo barwaaqo insha Allah ta'ala ilaahayna waafajiyo ama ba'da ikhwana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ajma'in Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'un alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim wahdini wahdina wafiqna ila haqq wa ila tariq almustaqim ya rabbil alamin Allahumma ij'al al-Qur'ana fi ad-dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الخيرات كلها دليلا وإماما يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا الخير اللهم وفقنا الخير إله ذلك النودج إله ذلك النودج إله ذلك الدبات نجهز إله دبات النهقات إله الذنب هداك الذنب إله النهقات إله عليسك النهقات إله عليسك النهقات اللهم اجعلنا التوابين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأحمد محمد برور وحن كمل هاي جاليد الصوماليات دلك النرويج خاصة جاليد كسو جودو كبر كلا دورتي واسكا وحن لا هاي إلهي هكوف زي حلك الأدب والمو دورتي وحن كون رجينينا إن ندقطو واسكي كسر لها حالة تخلف سن وكوجي رومان تدقان كلا دورتي هذا حن لا دنكست سياسيا يدغن يهرمر انتم واس وحن رجينينا إلهي إنه كديو واسكي برواقة وهرسين ومده الله دورتي magacay waa Axmed Shiil Cabdi Aadan oo kamid ah jaaliyada beesha sade Norway waxaan taageersanahay si uu dhacdo xafladda wanaagsan ee lagu taageeray ugaas Maxamed oo ku qanacsanahay si fiican been noogu dhacday ugaaskana waa taageersanahay anigoo ah Cabdullaahi Qadar Axmed kuna hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Norway
aad iyo aad baan u taageersan xalfadan aad iyo aad loo soo agaasimayo aad iyo aad u qurxan dadka sharafta leh ee kasoo qayb galeen waxaan ugu duceynaynaa ugaaska inuu noqdo ugaas maaragtay waajibaadka iyo shaqada hortaa la qabto ummadda Soomaaliyeed isu keeno wadankanaga maaragtay ka qayb qaata dhismihiisa iyo nabad ku dabaalida iyo maaragtay arrimaha bulshada iyo dhaqanka. بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa xudun Ahmed Diif ma ku hadlaaya afkayga iyo afka bulshada magacayga iyo magaca bulshada reer Norway qaasatan beesha sida odayaasheeda waxa farxad weyn ah ugaaskii koowaad oo aan ka dhiibto codkayga inuu yahay ugaaska beesha sida waayo kuwii hore waa xigii horeeyay ahaayeen iyo wax horteeda dhintay ugaaskii koowaad aan fakarkayga ka dhiibto waan ku faraxsanahay xafladdu sida quruxda iyo qaayaha loo ay u dhacday iyo khiyaarta ka soo qayb gashay iyo jawiga ay noogu dhamaatay iyo wanaaga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.